aan soo wadnay alxamdulilah waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddoonka labada aqal guddiga doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuway doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwaan isiinba waad mahadsantihiin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhoweeyo walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan ma aha kulligeen aan ilaahay u barinno inuu hawshaan u fududeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhoweyn madaxweyne soo dhowow ilaahay hawshaan dhibka badan allah kuu sahlo mahadsanid بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantana waa maalin kale oo ka mid ah maalmihii taariikhda ay samaysay dalkeena Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo halkaan ugu soo dhoweeyay asagana waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadihiyey doorashadan muddadii dheereed sidoo kale dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee deegaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaankan sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu garab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabya uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah musawo kasta ha la ekaadeene inaan daaweyno sidii aan maalmo dhoweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhowed aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaanku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirno berri yaana